بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم saaka waxaa halkan isugu yimi xubno ka mida guddidii ka hortagga caabuqa COVID-19 waxaana kalifay soo baxan cusub uu aad u soo dilaacay xanuunkii oo dib u soo noqday iyo warwarka iyo dareenka uu geliyey shacabka Somaliland iyo xukuumaddaba sidii looga hortagi lahaa ama looga gaashaaman lahaa iyo wixii talooyin la isweydiin lahaa iyo wixii macluumaad lala wadaagi lahaa dadweynaha labadan bilood oo u dambeeyey ee uu xanuunku dib u soo cusboonaaday waxaan halkan ku soo gudbinayaa marka hore inaan la wadaago shacabka bishii aynu soo dhaafnay 8aad oo uu dib u soo bilowday xanuunkan caabuqani dadkii uu maxaan ku dhahday u soo dhacay ama laga helay iyo bishan Sebtembar ee 9aad aynu ku jirno dadkii xanuunkaa laga helay inta laga helay inta laga baadhay iyo inta laga helay iyo inta u dhimatayba bishii aynu soo dhaafnay waxaa la baadhay 8,986 qof ayaa la baadhay waxaa laga helay 261 waxaa u geeriyooday 16 qof bishan aynu ku jirno oo 20 cisho ah waxaa la baadhay 6,969 qof waxaa laga helay 906 waxaa u geeriyooday 50 waxay ku tusaysaa xogtaasu inuu aad iyo aad u soo xoogaystay waxyeeladiisuna ay aad u weyn tahay waxaan rabaa inaan la wadaago shacabka waxyaabaha aynu haysanno ama ay tahay daaweyn ama ka hortag ay tahay ee xanuunkan lagula tacaali karo waxaynu haysannaa 177 sariirood oo 6 gobol ee waaweyn ee dalka cisbitaalladooda yaalla waxaynu haysannaa 5 mishiin oo kuwa dhaliya oksijiinta dadka uu soo rito lagu xidho waxaynu haysannaa gaaska haamaha gaaska boorama waxaa yaalla 30 hargeysa waxaa yaalla 230 berbere waxaa yaalla 203 burco waxaa yaalla 150 argaabo waxaa yaalla 250 ascaanoodna waxaa yaalla 15 baa yaalla waxaa la tallaalay oo tallaalka la isticmaalay 65,000 oo meelah 30,000 oo meelah 30,000 oo meelah 125,000 oo tallaal ayaa intii uu xanuunkani bilaabmay ka baxay wasaaradda caafimaadka waxaa yaalla tallaal cusub oo shalay loo qaaday gobollada oo dhan beritana ka bilaabmi doona oo khamiis ah goobaha caafimaadka ee loogu talagalay tallaaladii horena ay ka shaqaynayeen dhammaan dadweynaha reer Somaliland waxaan ku baraarujinayaa xanuunkaasu inuu dib u soo noqday faafitaankiisuna aad u dheeraynayo aadna u xoog badan yahay waxa la hubo ee lagaga hortegi karo na waxaa ugu weyn waa tallaalka anigoo inta kale uga bixi doona wasiirada kale ee weheliya waxaan kula dardaarmayaa shacabka Somaliland maadaama aynu haysanno maanta tallaalkii waanu rabno magaalooyinka iyo miyigaba inuu gaadho oo weliba miyiga mid gaaroo loogu talagalay oo hal mar uun la qaadanayo magaalooyinkana kii 2 jeer la qaadanayay ah waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo in tallaalka loo dareero oo tallaalka la qaato waxa la hubiyey qofka la tallaalo inuu 99% uu uga adkaysi badan yahay qofka aan la tallaalin waxaan ayaan dhowdina u wadaagi doonaa xogta dadkaa geeriyooday inta la tallaalay intay ahayd
iyo inta aan la tallaalin dabadeedna ay muuqato waxtarka tallaalku halkaa ka muuqdo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad waxaan idinku baraarujinayaa in tallaalka la qaato waxaan uga baxayaa hadalka inta kale wasiirada kale iyo weheliye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu